كعجيبة وكسابسن أردوغان وفرت مروجي ماكرون isagoo ku calaacaday war isiida haddaba maxay tahay sheekadan qabsatay baraha bulshada iyo warbaahinta ee Erdogan uu ku sameeyay madaxweynaha Faransiiska warbixin la yaab leh ayaan idin haynaa madaxweynaha wadankaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ay arrin la yaab leh ku sameeyay digiisa wadanka Faransiiska Emmanuel Macron waxay ka dhabgelayeen shir Albania ka dhacay laakiin arrin cajiib ayuu sameeyay inta aan sheekada horta idin soo bandhigin horta muuqaalka ayna tuso kadibna waxaan eegi doonaa arrinkaasi ku saabsan waxa dhici doona Erdogan ayaa wuxuu ku dhigan yahay farta gacanta bidix Macron laakiin Macron wuxuu damacsan yahay inuu ka laabto laakiin maxaa ka dhacay fartii acbaar la jiiday ilaa uu yaabay Macron uu leeyahay wareega fog war isiida oo ku dhagan yahay haddaba aan eegno marka sheekadan iyo waxa ay ka dhalisay baraha bulshada muuqaal si weyn u wareegaya baraha bulshada ayaa kiciyay dood iyo farcelin isagoo muujinaya gacan qaad aan caadi ahayn oo dhexmaray madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo digiisa Faransiiska Emmanuel Macron intii lagu jiray shirkii lixaad ee kooxda siyaasadeed ee Yurub ee ka dhacay caasimadda Albania ee Tirana muuqaalku wuxuu muujinayaa Macron oo damcay inuu salaamo Erdogan oo fadhiyay isagoo si tartiib ah u taabanaya gacantiisa balse Erdogan ayaa si adag u qabtay faraha Macron mid kamid ah kana hor istaagay inuu ka baxsado dhowr ilbiriqsi ay arrintaasi socotay ka hor intiisa Macron ugu dambeyn uu fakan arrintu waxay dhalisay su'aalo iyo fursado kala iyo fasiraado kala duwan oo ay muujiyaan baraha bulshada labada madaxweyne waxa la socday laba turjubaan oo u kala tarjumayay hadalkooda waxaana muuqatay in Erdogan uu si olo kaca ugu dhagan yahay faraha Macron isagoo ugu dambeyntiina si tartiib ah ugu sii daayay muuqaalkan gaaban ayaa si weyn u soo jiitay indhaha baraha bulshada iyadoo si weyn looga firciliyay baraha bulshada doodaha qaar lagu qoray baraha bulshada ayaa waxay leeyihiin tani waa mid kamid ah dhacdo xambaarsan fariin dhanka diblomaasiyadda oo qarsoon halka kuwa kalena ay ku tilmaameen dhacdo aan caadi ahayn oo si lama filaan ah kaamiraduhu ay u qabteen xilli siyaasadeed oo xasaasi ah oo lagu jiray qaar kamid ah dadka falaaqaya arrintu waxay leeyihiin dhaqdhaqaaqa Erdogan wuxuu muujinayaa in uu maquunin karo ama uu ka gacan sarreyn karo Macron iyadoo Macron isdifaacid uu ku jiro marka waxa loo qaatay Erdogan oo weerar ku ah Macron iyo Macron isdifaacaya qof kale ayaa baraha bulshada wuxuu ku yiri Erdogan wuxuu qabtay faraha Macron si geesinimo leh si uu muujiyo awood inkastoo calaamadu ay si fudud muuqato haddana waxay xabaarsan tahay baa la yiri fariin xooggan